salaamullaahi calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walba muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo halkani waa Tollito channel kuna soo dhowaada barnaamijkeenna ciyaaraha oo had iyo jeer aynu ku falanqeyno waxa ka cusub kubadda cagta ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeenna adiga oo riixaya calaamadda gambaleelka hana naga iloobin in aad like saarto muuqaalkan mahadsanid ugu horeyna aynu ku hormarnay kooxda Juventus ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo wareegtay kabtanka kooxda Ajax Amsterdam ee Maanta Ciyaaraha iyaga oo kula soo wareegay difaacan adoo lacageed gaaraya 75 milyan oo euro muddo 5 sanadood ah ayaynu ku bixin doonaan iyo waliba 10.5 milyan oo dheeri ah oo ku xiran bandhiga gaarka ah ee difaaca reer Holland ee Maanta Ciyaaraha ayaa u saxiixay kooxda Bianconeri qandaraas uu kula joogayo 5 sanadood oo soo aadan isaga oo kooxda baaqi ku ahaan doona ilaa iyo 30 bisha June 2024 19 jirkan ayaa horay waxa u doonayay kooxaha Manchester United, Barcelona iyo Paris Saint-Germain xilli isagana uu ku hogaamiyay kooxda reer Holland ee Ajax Amsterdam in ay gaadho semifinalka Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay inkastoo xasuuq ba'an ay u geysatay kooxda Tottenham ee ka dhisan caasimadda London ka gadal markii uu yimid Maanta Ciyaaraha magaalada Turin waxa uu yiri waan ku faraxsanahay in aan halkan imaado xilli kulankiisii ugu horeeyay uu u saftay kooxda lagu magacaabo Ajax Amsterdam 2016 waxa uuna kula guuleystay horyaalka laga ciyaaro dalka Holland iyo waliba sidoo kale koobka lagu magacaabo Dutch Cup waxaana uu gaaray finaalka Europa League sanadkii 2017 Delight ayaa u dhaliyay kooxdiisa ilaa iyo 8 gool 77 kulan uu u ciyaaray horyaalka waxa uuna ku soo biiray isaga oo 9 jir ah xilli uu noqday kabtankii ugu da'da yaraa taariikhda bishii March 2018 waxaana xasuus gooni ah ku yeelanaysa jamaahiirta kooxda Juventus inuu ka dhaliyay goolkii guusha Juventus tartanka Champions League. Delight ayaa kulankiisii ugu horeeyay u saftay xulka qaranka Holland bishii March 2017 inkastoo waqtigaasi kaliya 2 kulan uu u saftay kooxda Ajax Amsterdam marka kan waa waalatay sheekada Neymar Jr. telefishinka reer Talyaani ee Rai Sports ayaa wuxuu baahiyay war ku saabsan in Neymar aabiis uu magaalada Turin kula kulmi doono agaasimaha isboortiga ee kooxda Juventus Fabio Petricchi waxa ayna ka wada hadli doonaan qorshaha ku qotama Neymar sidii uu ugu mid noqon lahaa kooxda Bianconeri warkan lama filaanka ah ayaa waxa uu noqonayaa mid dabarjab ku noqon doona kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Barcelona oo aad u doonaysa in dib ay u soo celiso halyaygoodii guulaha waaweynka u soo hooyay 5 kooxood ayayna u soo bandhigtay kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Paris Saint-Germain kooxda Juventus ayaana haatan ku fikiraysa in Neymar ay ka garab ciyaarsiiso Cristiano Ronaldo Badreke iyo sidoo kale aabaha dhalay Neymarna waxay ka wada hadli doonaan sidii Neymar uga mid noqon lahaa kooxda Juventus ee ka ciyaarta horyaalka Serie A Talyaaniga xidigaha Manchester United, Liverpool, Arsenal iyo Chelsea ayaa waqti xaadirka kan waxay ka soo muuqdeen liiska 8 ka ciyaariyaan ee u sharaxan abaalmarinta wiilka dahabiga ee sanadka 2019 ee loo yaqaan Golden Boy abaalmarintan waxaa la siiyaa xidiga ugu fiican Yurub da'diisana ay ka hooseyso 21 sano waxaa sanadkii hore ku guuleystay saxiixa cusub ee kooxda Juventus Maanta Ciyaaraha xidigaha hore ugu soo guuleystay abaalmarintan waxaa kamid ah Kylian Mbappe, Renato Sanchez, Antonio Martial iyo Raheem Sterling sanadkan xidiga badan oo Premier League ah ayaa ku jira sida laacibka lagu magacaabo Phil Foden, Matteo Guardiola iyo laacibka kooxda Chelsea Callum Hudson-Odoi sidoo kale waxaa qayb ka ah laacibka da'da yar ee reer England Jadon Sancho Maanta Ciyaaraha ayaa sidoo kale u tartamaya abaalmarintan iyo xidiga lagu magacaabo Joe Felix oo dhawaan ay la wareegtay kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Atletico Madrid sidoo kale maanta waxaa si weyn loo hadalhayaa tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa si weyn wuxuu ugu cadaadinayaa madaxda xagga suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gabagabeeyaan ololaha baaxadda weyn uu ku doonayo laacibka kooxda Sporting Lisbon hogaamiya ee lagu magacaabo Bruno Fernandes. Manchester United ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba aad waxay u xiisaynaysay laacibka reer Portugal ee Fernandes. dalabka ugu horeeya ay ka gudbiyeenna wuxuu noqday ilaa iyo 50 milyan, laakiin kooxdiisa ayaa ku qiimaynaysa 90 milyan oo euro. Arsenal dhankeeda waxa ay sheegtay in diyaar ay ula tahay inay bixiso mushaharka laacibka lagu magacaabo Dani Ceballos, kaasi oo gabi ahaanba doonaya inuu isaga tago kooxda Real Madrid ka gadal markii uu ka waayay booska joogtada ah. sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa qorsheynaysa in ay qaado howlgal ay ugu magacdartay howlgalkii 200 milyan, iyaga oo doonaya in ay iibiyaan qayb ka mid ah xidigahooda sida Gareth Bale iyo James Rodriguez. lacagta ay ka bixiyaanna waxa ay doonayaan in ay kula soo wareegaan laacibka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Faransiiska ee Paul Pogba. wakiilka Pogba isna wuxuu cadeeyay in meesha uusan ka saari doonin suurtagalnimada ah in laacibka kooxda Manchester United ee Pogba dib ugu laabto kooxda Juventus. kooxda Manchester United dhankeeda waxa u furan albaabada ay kula soo wareegi karto laacibka kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr. oo 27 jir ah. United ayaana doonaysa in guud ahaanba bangigeeda ay u jibiso sidii ay ku soo xirigelin lahayd Neymar oo goor horeba lala xiriirinayay ka hor inta uusan ku biirin kooxda Paris Saint-Germain. kooxda Barcelona ayaa dhankeeda waxay samayn doontaa isku dayo badan oo ay ku soo qaadanayaan laacibka reer Brazil ee Neymar oo baryahan qabsaday xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. sidoo kale xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Arsenal ee Granit Xhaka ayaa u sharaxan in kabtanimada kooxda Arsenal uu kala wareego Laurent Koscielny. Arsenal ayaana wada qorshe baaxad weyn oo ay ku doonayso in ay ku xaliso xaalka 33 jirka reer Faransa ee Koscielny oo gabi ahaanba ka soo horjeestay in uu u raaco naadiga Arsenal safarkoodii Mareykanka. Pep Guardiola isla dhankiisa wuxuu albaabada u furay 23 jirka reer Germany ee lagu magacaabo Ligt Sane, kaasi oo dalab 100 milyan ay ku doonayso kooxda Bayern Munich, waxaana uu yiri haddii uusan ku faraxsanayn qalcadda Etihad Stadium diyaar ayaynu u nahay in aynu iibino Ligt Sane. guud ahaan barnaamijkani ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. maanta inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa saaxiibayaal ee sida iyo nabadgelyo.